بسم الله الرحمن الرحيم daawadayaal kusoo dhawaada Baha Inspires oo mar kasta ama usbuuc kasta idin la wadaagaysay barnaamijyo kala duwan oo aan isleenahay inay bulshada wax badan u kordhinayaan. Maanta waxaan rabnaa in aan daawadayaasheeni iyo dadka nagu xiran aan la wadaagno su'aalo keli ah. 8 su'aalood oo aan isleenahay yani qofka hadii uu wax badan ka fikiro jawaabahoodii uu raadiyo يعني isku mashquuliyo in su'aalahan uu jawaab u helo yani wax badan noloshiisa ay iska bedeli karaan ama saameyn ku yeelan karaan. Su'aalahan markaan idin la wadaagayo micnaheedu ma ahan dhamaantood in jawaabahoodii nafteyda aan helay ama aan gaaray xaqiiqdoodii balse waa su'aalo nafteyda qeyb ahaan igu taagan qaarkood laga yaabay inay maxaan ku yiraahdaa aan ka jawaabay ama si aan maxaan ku yiraahdaa aan wax uga yiraahday raadintoodii jawaabtoodina weli waan daba socdaa oo inaan yani jawaabta ugu dambaysa aan helaan aan ka shaqeynaya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wax badan wuxuu inoo sheegay in dhiirigelinaya inaan wax isweydiino su'aalo isweydiino nafteen aan weydiino dadka kalena aan weydiino. يعني markuuna leeyahay fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haddii aadan garanaynin dadka garanaya wax weydiiya ahla dhikriga dadka u ah oo yani cilmiga u saaxiibka ah weydiiya. marka su'aasha micnaheeda xaqiiq ahaan waxay kugu kicinaysaa inaad jawaab raadiso inaad cilmi raadiso inaad wax raadiso wixii ka maqan inaad raadiso wax kugu dhelinayo waa su'aasha. marka su'aalahan aan rabo inaan idin la wadaago dhamaantoodii waa su'aalo waaweyn runtii xaqiiqdii yani ka jawaabistoodina ay aad u adag tahay qaarkood ay waqti badan qaadanayso inaad jawaabta ugu saxda aad hesho laakiin waa muhiim in markasta ay jiraan su'aalo inagu taagan oo aan jawaab u raadinayno. su'aasheedu koowaad waxay noqonaysaa aan rabo inaan idin la wadaago yani asxaabay shakhsiyad noocee jeclaan lahayd inaad yeelato. dadka qof kasta wuxuu leeyahay shakhsiyad u gaar ah يعني waxay dhahan Soomaalida hebel waa qof xun hebel waa qof wanaagsan hebel waa qof xanaaq badan hebel waa qof saas ah yani dabeecadaha aadanuhu way kala duwan yihiin. adiga dabeecad nooce aad jeclaan lahayd inaad lahaato midda hadda aad leedahay ma ku ganacsan tahay waxyaabo ma jiraan aad jeclaan lahayd inaad ka bedesho yani dabeecad ama shakhsiyad nooce aad jeclaan lahayd inaad yeelato waxay u baahan tahay in qof kasta anaga naga mid ah uu ka jawaabo. su'aasha xigta waxay noqonaysaa asxaab noocee baad jeclaan lahayd inay kugu xareereysanaato. qof kasta wuxuu ku nool yahay deegaanku uu ku nool yahay wuxuu ku leeyahay macrifo ehel asxaab uu leeyahay qaarkood uu ka soo dhaxlay iskuulka qaarkood uu ka soo dhaxlay masaajidka qaarkood uu ka soo dhaxlay yani deegaanka shaqada goobta ama waxbarashada. marka maadaama ay asxaab aad markasta ku dhex jirto dadka aad kugu xareereysan ma yihiin dad aad ku ganacsan tahay ma jiraan dad aad raadinaysay noocyadoodii ma yihiin dad wax kugu kordhinayo asxaab noocee jeclaan lahayd inay kugu xareereysanaato. waxaa la yiraahdaa nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis waxaa ka soo arooray uu leeyahay عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه. qofka waxba ha weydiinin ee waxaad weydiisaa qofka uu saaxiibka leeyahay oo qariinka leeyahay oo la socdo wax badan la wadaago kaas weydii. kaas haddii aad aragto asigoo ah qof maxaan ku yiraahdaa yani aad ajibsanayso ma sha Allah aad u wanaagsan micnaheeda qofkan wuxuu ku soo baxaya ama waxa waaye qof wanaagsan way. marka saaxiibta saameyntiis weyn ayuu leeyahay. asxaab noocee ayaad jeclaan lahayd inay kugu xareereysanaato daawada. waa su'aal muhiim ah una baahan qof kasta inuu jawaabteedii uu raadiyo. su'aasha saddexaad daawadayaal oo aan rabo in qof kasta uu raadiyo jawaabteeda oo ka fikiro waxay tahay sifooyinkee jeclaan lahayd inaad noloshaada ka saartid. qof kasta sifooyin uu leeyahay qof baa laga yaabaa hurdada ku badan qof baa laga yaabaa cuntada ku badan markasta cunto badan inuu jecel yahay qof baa laga yaabaa wuxuu jecel yahay maxaan ku yiraahdaa yani in oo iska hurdo oo kaslaan ahaado qof ba sifooyin badan uu leeyahay waqtiga inuu ilaalin inuu jecel yahay wax kasta dib u dhigashada ayuu jecel yahay. marka sifooyin noocee jeclaan lahayd inaad noloshaada ka saartid bataatan aad iska tirtirtid oo bye bye aad dhahdo ma jiraan sifooyin aad sidaa ku sameyn lahayd oo ku qoran oo aad sidaa ku sameyn lahayd. su'aasha afaraad maalintaadii maxaa jeclaan lahayd inay kaaga baxdo. qof kasta yani ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ina siiyay 24 saacadood oo habeen iyo maalin leh maxaan ku yiraahdaa waqti nasasho leh waqti shaqo. marka maxaad jeclaan lahayd maalintaada 24 saac inaad ku buuxsato oo maalin kasta maxaad jeclaan lahayd inaad u dhiibato. yani
qofka hadaafta uu gaarayo wuxuu ku gaarayo kaliya ma ahan sanadaha iyo bilaha iyo usbuucaha uu noolaanayo ahdaaftiis waxyaabaha uu ku gaarayo waxa ugu horeeyo sida uu uga faa'iideysto maalinta uu nool yahay marka maalintaad aad nooshahay 24 saac kasta oo ku soo marto maxaa jeclaan lahayd inay kaaga baxaan su'aasha shanaad waxay noqonaysaa goormay rabtaa inaad gaarto isku filnaansho dhaqaale yani qof kasta wuxuu ordayaa subaxii u soo kacaya yani in uu irzaaq helo يعني ha ahaato xalaal ha ahaato xaraam yani qofkay ku xiran tahay nooc uu dooranayo laakiin qof kasta aad aragto oo waaga markuu baryo kalahayo meel aadayo shaqo aadayo ganacsi aadayo wuxuu raadinayaa isku filnaansho dhaqaale inuu gaaro uu xoolo uu helo yani faqriga waxa way wax aad u xun waaye Umar Ali ibn Abi Talib hadalada laga soo wariyo waxa kamid ah hadii uu faqrigu ahaan lahaa qof ama rajul uu ahaan lahaa kawanka siin lahaa waa dili lahaa taas waxay ku tusaysaa faqriga siday u necbnaayeen saxaabada yani faqriga ma fiicno yani waxa kale jiro kelimo kale ama jumlad kale oo sidoo kale la soo wariyo oo leeyahay hadii faqrigu albaab ka soo galo iimaanku wuxuu ka baxaya albaabka kale uu ka baxaya يعني فقرك ما أهم wax fiican ilaahay subhanahu wa ta'ala hanaga ilaaliyo yani dadkeeni umadaheena ilaaha ka ilaaliyo bulshooyinkeena Soomaaliyeed iyo bulshooyinkeeda muslimiinta ahna ilaahay ka dhigo dad isku filan oo dhinac kasta isaga filan faqriga ma ahan kaliya xitaa in maxaan ku yiraahdaa maadi waxaad cunto aad weyso waxa faqri ah amniga aad weyso waxa faqri ah isku filnaansho oo maxaan ku yiraahdaa maamul iyo dawladeed oo aad weyso intaas dhan waa faqriga qayb kamid ah waxaan rabbi subhanahu wa ta'ala ka baranaynaa inuu naga saaro dhamaan noocyada faqriga uu leeyahay su'aasha ku xigto waxa way daawada aan kula wadaagay waxay tahay su'aasha ku xigto waxay tahay hadii aad hesho xoolo adduunyo oo kugu filan oo maxaan ku yiraahdaa wax kasta aad ku sameeysan karto yani guriyo caruur wax walba hadii aad hesho maxaad waqtigaada u gaar yeeli lahayd maad u faraaqo noqon lahayd oo waqtigaada ku buuxin lahayd shaqo kuma taalo ganacsi ma rabto lacag meeshii ugu dambeysay aad haysataa maxaa jeclaan lahayd waqtigaada ku harsan inaad ku bixiso su'aasha toddobaad waxay tahay sideen u kordhin karnaa fahankeena diinta يعني إلهي سبحانه وتعالى دين ونوسو دجي نبي ونوسو ديري رسالة نسو غارسيي يعني دين تاس waxay inooga baahan tahay fahan iyo tadbiiqin iyo ku dhaqan ay inooga baahan tahay xadiidkii muttafaq ahaa oo dhahay safiinaha inta ka bilaabanay man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din qofkii ilaahay khayr la doono wuxuu fahansiinayaa diintu fahansiinayaa hadaadan diinta fahansanayn wax badan ka fahansanayn aadan ku dhaqmaynin noloshaada aadan ku tadbiiqinaynin waxyaabo badan ay ka maqnaanayo ama ka qaldimi karayo marka sida u gaaraysaa fahan diini ah rasmi ah xaqiiq ah sida u gaaraysaa su'aashan waxay nooga baahan tahay eedan jawaab inaan u raadino oo aan ka fikirno sidaan u xaqiijin lahayn in diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo soo dejiyay aan si sax ah u fahanno su'aasha sideedaad ee ugu dambayso daawadayaal aan idin la wadaagayo waxay tahay yani qof kasta noole kasta uu dhimanaya dunidan wuu ka tagayaa maalinta aad dunida ka tagayso maxaa jeclaan lahayd in lagu xasuusto oo aad uga tagto dadkaaga dalkaaga dunida oo dhan maxaa jeclaan lahayd inaad uga tagto oo lagu xasuusto biikhtisaar maxaa jeclaan lahayd inaad dunida ku soo biiriso oo markaad baxdo yani aathar iyo saameyn ah rabtaa inay ka haraan oo dadyowga ka dambeeyay ay ka faa'iideysan karaan su'aalahaas dhamaantoodii waa su'aalo waaweyn u baahan waqti lagu tadbiiqiyo waqti lagu taxliiliyo waqti jawaabahooda lagu raadiyo anigana qayb baan ka ahay dadka su'aalahaas ay ku taagan yihiin waxaan rajaynayaa qof kasta inuu qorto ka faa'iideysto raadiyo jawaabo u raadiyo isku dayo inuu noloshiisa maxaan ku yiraahdaa wax ku soo kordhiyo saameyn uu ku yeesho hadii aad jeceshahay in macluumaad kale oo faa'iido leh oo ku saabsan yani guud ahaan nolosha aad jeceshahay inay ku soo gaaraan ku xirnow Taha Inspires oo usbuuc kasta daawadayaasha ama dadka ku xiran la wadaagto clip yar oo aad u kooban sidan oo kale والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته